dadkan ay wadaan qaran duriska ee jawaanka weyn maran sidee lacagtu doonayo dalkan hore u soo dib u noqon la maran dadkan oo mucaaradka ee xildhibaanada ayaan ka banaan baxaynaa dhamaantood buriyaan dhamaantood dad nadiif la doorto mudaaharaadka ayaa ku taageeraysaa waxaan ku taageeray madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taageereen idinkuba iskiin u banaan baxay mise dad banaan baxay maya qof isogmale banaanka iskooda muddo dhan soo baxay qof ogmale lamada soo abaabiro nin walba buushkiisa iyo gurigiisa oo soo baxay nin walba dantiisa faraw ka soo qaadana hadda bulkeeta aan dhisay waana ka soo tagay kadib markaa arkay mooshinkan aan dhamaanayn Soomaaliya markii wax talaabo qaado oo mooshinka bilaabmaya ayaa waxaan dantayda waxaan u soo baxay inaan anigu fiirsado oo danta Soomaaliyeed iyo danta guud anagoo ka naxayna ayaa waxaan aragnay horumarka ee socdo ee baahan ee la soo taagayo ay soo taagayaan xildhibaano dan gaar ah leh marka waxa ku taageeraysaa mudaharaadka mudaharaadka waxa ku taageeraya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhammaan xukuumadda waxqabadka balaaran ay qabteen waa ku taageeraya cid alla cid ka soo horjeesatana annaga waxaan u aragnaa cid qaran dumisa oo dalka Soomaaliya dan kala hayna dan gaar ah fiirsanaya waxa saakay ka mashquulay aniga shaqadeeda waxaan u mashquulay mooshinkan adiga beneeda ayaa xildhibaanada ay soo jeedinayaan xildhibaanadan adiga aan shaqaysan runtii oo mooshinka beneeda wado runtii aad iyo aad u soo jeedaan magacayga waa Shaafici Shariif Maxamed xaqiiqdii maanta jooga magaalada sida ka muuqata waa magaalo arintu waxa jiro jawi siyaasadeed aad u qasan kulay anigoo ku hadlaya magaca shacabka ama ummadda Soomaaliyeed xaqiiqdii wadanka muddo badan oo dagaal iyo jahwareer badan siyaasadeed ku soo jiray hadda waxaan joognaa 2018ka meeshii hore loo sii socon lahaa waxaa moodaa haddana isqabqabsiga inuu dib u soo laabanayo marka waxaan codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dagaalo iyo isfahmi waa iyo khilaaf way ka soo daaleen marka in shacabka loo turo koox waliba waxa ay tabanaysan si hoose loo wada xalliyo oo la raadiyo dhaxdhaxaadnimo ama ayaga dhaxdooda isu kala dab qaadaan madaxda dalka marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in loo noxo oo dadka dhibaatada 20 sano iyo 30 sano soo dhaaf ku jiray aan loogu sii darin isqabqabsi kale iyo maxaa lahaa kala duwanaansho intaas ayaan ra'yigii ku cabir lahaa